السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلامتين أصحابتي aan ku saaxiibnay baraha bulshada idil ahaanteen meel walba aad joogtaan maanta waxaan ka hadli doonaa 10 door ee ugu caansan uu sameeyay aktarka la yiraahdo Barahmanandam ay Soomaalida u taqaan Leelefo Barahmanandam kanagaanta wuxuu dhashtay 1 Febraayo 1956 waa actor jilaa waliba dhanka shactirada kaasoo lagu yaqaan inta badan filimada koonfur India ee Soomaalida sanadadan dambe aad u xiiseeyaan waa mid ka mid jilayaalka ugu shactirada badan ee abid Soomaali India maanta waxaan ku soo gudbinayaa qayb ka mid ah 10kiis door ee ugu caansan ee uu aktarka sameeyo qaybtiisa koobaad filimka Naabelanta wuxuu keenay magaca Aragondo Barahmanandam wuxuu weligiis uu sameyn jiray door shactiro oo weyn oo mug leh waxaana doorkaas ka mid ah doorka loogu yeeray Aragondo ee filimkii Naabelanta filimkan waxaa hogaaminaya aktarka lagu magacaabo Chandayala halka uu soo saaray ka yahay D.R. Ramanaidu waxaana filimkan la daawaday sanadkii 1987 Leelefo waxa uu filimkan ku muujiyay bandhig inaba aan caadi ahayn isagoo si weyn u madadaaliyay daawadayaasha waxaana dadka ay la cajabayn sida uu ficilka iyo hadalka u sameynayo kaasoo dad badan si weyn ugu qosleyay waana mid ka mid ah bandhigyadii ugu wanaagsanaa ee aktarkan lagu xasuusan doono filimka Apollo Bra wuxuu keenay magaca Sastire Apollo Bra waxaa la keenay 1991 waa filim shactir qoyseed ah waaba filim leh madadaalo dhameystiran kaasoo uu sameeyay directorka lagu magacaabo Satya Narayan halka uu soo saaray ka yahay Kamandeno Barahmanandam Leelefo waxa uu filimkan ku jilay oday dhaqameed asagoo si weyn kaga qosliyay daawadayaasha kuwaasoo qosolkooda uu gaaray heerka ugu sareeyo waxaana filimkan isagoo ku wehelinaya Rajendra Prasad filimka Mane wuxuu ku keenay magaca Qaandada Barahmanandam Leelefo wuxuu ku jilay door ka duwan doorarkii hore iyadoo filimkan la daawaday sanadkii 1995 filimkan Barahme wuxuu ku jilay doorka lagu magacaabo Qaandada oo ahaa nin leh dabeecad halis ah oo gangster Barahme Leelefo wuxuu filimkan ku matalayay nin ka baayac mushtara bataajada la soo xaday laakiin qof walba waxa uu ku sirmaayay wajigiisa nacasnimada ka muuqata isagoo ka badbaada dhib kasta isagoo aktarkan uu sabab u noqday filimkan inuu gadmo filimka Vinki wuxuu ku jilay magaca Gajala Leelefo ayaa filimkan waxa uu ku jilay doorka Gajala Barahme waxaana uu noqday mid ka mid ah doorarka ugu wanaagsan uu sameeyay aktarkan inta uu ku dhex jiray filim jilista iyadoo dhacdada ugu qosolka badan ee filimkan ku jirta ay tahay muuqa Rafi Teacher oo ah injineernimo sharaf leh inuu ku raaxaysanayo Leelefo xilli ay ku wada safrayeen tareenka isagoo Leelefo ku dhufanaya dharbaaha Rafi ayaa waxa uu sheegay Barahme Leelefo inuusan ku lug yeelan arrimaha aan loo baahnayn isagoo wax yar kadib Rafi Teacher uu ogaanayay in Barahme Leelefo uu yahay tuuga haysta magaalada uu socdo waxaana halkaas ka dhacaya kooyin iyo ficilo qosol badan Barahme Leelefo ayaa filimkan waxa uu ku muujiyay bandhig aad u fiican filimka Manmadudu wuxuu ku keenay magaca Lavangam doorkiisa filimkan waxaa loogu yeeray magaca Lavangam isagoo filimkan ku jilaya la taliyaha ganacsiga ee shirkadda ku taal Paris kaasoo jecel inuu meel kasta ka qudbeeyo filimkan waxa uu filimkan ku soo bandhigayaa muuqaalo qosol oo ka mid ah xilli uu khudbad ka soo jeedinaya shirkad ganacsi ee ku taal Paris waxaana khudbadii u bedelaya aktarka filimkan hogaaminaya Nagarjuna kaasoo si weyn ugu ciyaaraya Leelefo iyadoo ay qosol la wada dhacayaan dadkii goobta isugu yimid